Nebi Huud calayhi salaam waxa uu ka mid ahaa nebiyada Alle u soo diray ummadaha si ay ugu yeeraan cibaadada Alle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak dhammaan asxaabta ku xiran Casaawa Academy. Waxay noo socday qisooyinkii nebiyada. Maantana waxaynu ka hadli doonaa qisada Nebi Huud calayhi salaam. Nebi Huud calayhi salaam waxaa loo diray qoomkii la dhihi jiray qowm Caad oo ahaa dad xooggan oo hodan ah isla markaana kibir badan. Qisadani waxay ka mid tahay qisooyinka lagu xusay Qur'aanka Kariimka ah si looga faa'iideysto. Haddaba aynu sii gudagalno qisada Nebi Huud calayhi salaam. Qowm Caad waxay deganaayeen dhulka loo yaqaano Al-Ahqaf. Waa dhul buuraley ah oo dhaca inta u dhaxaysa Yemen iyo Cumaan. Waxay ahaayeen dad jir ahaan aad u xoog badan. Dhulkana waxay ku lahaayeen guryo waaweyn oo adag. Qur'aanka Kariimkaana wuxuu xusay inay dhisteen dhismooyin qurux badan, waxayna ahaayeen kuwo isugu faana dhismooyinkaas. Marka laga soo tago kobaca dhaqaale iyo awoodaha ay lahaayeen, waxay ahaayeen qowm Caad dad iska indhitiray xaqa Ilaahay. Waxay ahaayeen dad shirki ku jira, isla markaana caasi ku ah Ilaahay. Waxayna caabudi jireen sanamyo, waxayna ku faani jireen hantidooda iyo awooddoodaba. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu Nebi Huud calayhi salaam u soo diray qoomkan si uu ugu wacdiyo. Wuxuuna u sheegay in Alla keliya ay caabudaan, shirkigana ay iska dhaafaan, xumaantana ay ka joogsadaan. Laakiin qowm Caad waa ay iska dhigatireen arrinkii uu la imaaday Nebi Huud calayhi salaam. Waxayna ku dhaheen, Huudow, adigu wax caddayna ma haysid, mana nihin kuwo iska deeniya ilaahyadooda. Sidoo kale waxay ku tilmaameen inuu waalan yahay ama uu been sheegayo. Wuxuuna Nebi Huud calayhi salaam uu isku dayay inuu u sheego inay xooggan iyo hantidan aysan waxba tarayn haddii ay Alla ku caasiyaan, balse waa ay diideen, sidoo kalena waa ay ku kibreen. Nebi Huud calayhi salaam wuxuu si joogto ah ugu celcelinayay inay Alla u toobad keenaan, haddii kale ay la kulmi doonaan cadaab adag. Laakiin waxay sii wateen diidmadoodii, iyagoo ku yidhi, maxaad nagaga digaysaa? Keliya waxaan filanaynaa barwaaqo iyo nolol wanaagsan. Markii ay diideen wacdigii, Alla waxa uu go'aansaday inuu cadaab ku soo dejiyo. Waxaa la bilaabay cadaabtii ugu xumayd. Dhulkii waa uu qalalay, geedihiinna waa ay angegeen, biyihiinna waa ay gurmeen. Way gaajoodeen, way haraadeen, laakiin halkii ay ka toobad keeni lahaayeen, waxay sii wateen diidmadoodii. Markii ay abaartu soo jiidantay, qowm Caad waxay arkeen daruur madow oo cirka ka soo baxday. Waxayna u maleeyeen inay tahay daruur roobeed. Markaas ayay ku farxeen, waxayna yidhaahdeen, daruurtani waxay noo keeni doontaa roob. Laakiin tani waxay ahayd cadaabtii Alleh. Daruurtii waxa ay keentay dabayl daran oo xoog leh, taasoo socotay muddo 7 habeen iyo 8 maalmooda. Qur'aankana wuxuu si faahfaahsan u sheegay, waxaan ku dirnay dabayl daran oo ay ahayd mid dadka baabi'inaysa, waxayna u burburisay sidii laamo qalalan. Dabaylahani xooggan waxay sii ruxeen dhismayaashii waaweynaa ee qowm Caad, waxayna baabi'iyeen dadkii kibirka badnaa. Qur'aankana waxa uu tilmaamay in meydkoodu uu dhulka daadsanaa sidii geedo go'an. Nebi Huud calayhi salaam iyo dadkii rumeeyey waa la badbaadiyey. Markii ay cadaabta dhacday kadib, waxayna u hijroodeen dhul kale oo ammaan ah. Waxaana la sheegay in inta badan noloshiisa uu ku qaatay dhulka loo yaqaano Yemen ama Shaam. Qisada Nebi Huud calayhi salaam waxayna baraysaa dhowr casharo oo muhiim ah. Casharada ayna barayso qisada Nebi Huud calayhi salaam waxaa ka mid ah inuu kibirku yahay mid keeni kara halaag. Qowm Caad waxay ku faani jireen jirkooda iyo hantidooda, balse taasi waxa umay tarin markii ay diideen xaqa kadib. Sidoo kale qisada Nebi Huud calayhi salaam waxayna baraysaa Alla inuu awoodo inuu wax baabi'iyo. Qowm Caad waxay ahaayeen dad xoog badan, balse keliya waxaa baabi'isay dabeyl yar. Qisadan teeda xigtana waxaan ku soo qaadan doonaa qisada Nebi Saalex calayhi salaam. Intaa iyo intayna isaga iman doono kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.